Waa nin oday ah oo meel fadhiya isagoo ooynaya. Waxaa u yimid wiil dhalinyaro ah. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa weydiiyey odaygii sababta uu la ooynayo. Odaygii ayaan yidhi, waxaan dhalay wiil dhalinyaro ah kaasoo aan ku dadaalay oo aan baray cilmi badan. Waxa uuna noqday qof aqoon-yahan ah. Maalin maalmaha ka mid ah, wiilkaygii aad ayuu u xanuunsaday. Durbadiiba waxaa la geeyey isbitaal. Dhakhtarkii ayaa ii sheegay inuu wiilkaygii ku jiro saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Wiilkaygii ayaa igu yidhi, Aabbo, ii keen shahaadooyinkaygii. Markii aan siiyey shahaadooyinkii, inta uu fiirfiiriyey ayuu igu yidhi, Aabbo, waad igu dadaashay oo waxaad i bartay cilmi badan, balse Aabe, ilaa iyo hadda waxaa maskaxdayda ka guuxaya sida aan u hor istaagi doono Allah subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah imaadan barin hal eray oo Qur'aanka Kariimka ka mid ah. Ugu dambeyn, wiilkaygii anigoo arkaya ayuu hortayda ku naf waayey. Ilaa iyo maanta waxaan la ooynayo waa hadalkaas oo uu wiilkaygii igu yidhi. Ugu dambeyn, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ilmaha barto Qur'aanka Kariimka iyo diinta.